Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaalkan. Muuqaalka maanta waxaan rabnaa inaan ku aragno qaabka loo qoro blog post article oo guuleysto oo weliba aan qori doono siyaabo kala duwan anigoo isticmaali doono labadan website ee la yaqaan ChatGPT iyo sidoo kale website loo yaqaano Flexibility AI. Marka labadan website ayaan isticmaali doonaa. Sidoo kale waxaan isticmaali doonaa prompts-kan oo aan sidana isticmaali doonaa. Waan siin doono ChatGPT iyo Flexibility si markaas aan u helno xogta ugu fiican ee markaas aan ku qoran karno blog post. Marka waxaan ka codsanayaa muuqaalkan haddii kusoo gaaray fadlan like noo saar. Waa mahadsantihiin muuqaalka dhammaystiran haddii aan guda galno. Marka hore waxaan ka bilaabaynaa waxaan imaanaynaa horta website-ka loo yaqaan Flexibility. Waxaan isticmaali doonaa prompts-kan. Marka hore inta horta bilaaban muuqaal inta bilaaban qorista article-ka waxaa la rabaa marka hore inaad soo diyaarsato title-kii markaas ka qori lahayd posters. Aniga sida idin title hadda u diyaarsan yahay. Marka waxaan ku beenaa marka prompt-kan yar ayaan ku beenaa. Kadib waxaan ku base gareynayaa website-kan loo yaqaano Flexibility. Marka waxaan leenahay marka Flexibility ayaan weydiinaynaa marka waxaan leenahay blog post waxaan qoraynaa blog post that answers how to find the best city auto insurance rates in 2025. Marka waxaan leenahay I want you to answer the question in detail and providing me with resources where you got the information so that I can use it in my blog. Marka waxaa waaye prompts-kan yar ayaan weydiinay marka inuu na siiyo xogta markaas ugu fiican ee markaas competitors-ka ay isticmaaleen marka si anagana marka noo noqdo mid la mid ah. Marka xogtan wuxuu ka soo aroorin doonaa marka website kala duwan oo markaas oo title-kan aan qorayno markaas ayaga oo markaas already run gareeyaan oo marka ku jiraan Google-ka oo markaas website-ada camal run gareeyaan oo 1 2 mise page 5 imaadeen. Markaas waxaan leenahay marka enter aan leenahay marka waxaan siin doonaa xogta ugu fiican markaas. Saa u jeedaan xogtii wuu na siiyey. Marka xogtan waxaan u isticmaali doonaa marka aan qorayno marka post structure-ka aan qorayno ayaan isticmaalaynaa. Marka waxaan qaadanaynaa xogtan waxaan ku base gareysanaynaa Google Doc ayaan furaynaa. Waxaan ku beenayaa intaan daarayaa. Kadib waxaan furanayaa blog cusub aan soo furanayaa. Halkan aan galaynaa. Waxaan isticmaalaynaa hadda marka qorayno structure-ka marka oo post aan qorayno isticmaalaynaa. Marka waxaan haddana marka aan aadi doonaa ChatGPT oo ah website kale aan isticmaalayno. Marka ChatGPT asagana waxaan siin doonaa prompt-kan ChatGPT Sparkle. Marka prompt-kan ayaan ku bedelan doonaa ilaa waxaan ku gareyn doonaa halkaas. Sorry. Marka ChatGPT aan soo furanaynaa. Aniga hadda waxaan isticmaalayaa ChatGPT tan lacagta oo plus isticmaalaa. Balse midda free waa isticmaali kartaa oo ayadana fiican tahay. Marka paste ayaan ku leeyahay. Marka waxaan leenahay marka intaan leenahay marka maxaan rabnaa marka ChatGPT marka maxaa waaye isku daya marka inuu fahmo waxaan rabno marka inaan loo qoro. Marka soo erijinta wuxuu ku leeyahay got it you want me to operate as a Sparkle the content generation specialist with a focus on engaging bunch and original content. I will keep this in mind for the all future content requests until you tell me otherwise. So marka hadda saa u jeedin prompt-kan uu fahmay. Marka wuxuu ku leeyahay what can I craft for you? Marka waxaan siin doonaa wixii marka aan rabno in loo qoro. Marka waxaan aadaynaa prompts-ka aan ku laabanaynaa.
kadib marka promptgan aan siinayna marka waxaan leenahay I want now aan soo koobi garaysano marka promptgan aan siinayna marka waxaan raacinayna marka information aan leenahay I will provide below to only create a structure marka structureka marka maxaan raacin doonaa sourcekii marka uu na siiyey flexibility ayaan raacin doonaa marka kuwa bedaan anu markaan kusoo laabano besta inta ku leeyahay marka inta waxaan dhahnay marka now I want you to create the structure of the block marka block structure ka rabnaa noo qoro sababtoo qaantin block outline noo qoro ayaan rabnaa marka titleka marka aan siinay how to find the best city auto insurance rates in 2025 marka waxaan leenahay the block will be answered marka maxaa the question in details I want you to use the research that I will provide below to only create this waxaan rabnaa researchkaas uu noo sii keli in the block structure so block outline in noo sii rabnaa marka structure-kii ama source-kii marka uu na siiyey flexibility ayaan soo koobi garaysan doonaa marka siin doonaa marka waxaan ku bileenahay marka keliya waxaa koobi garanaysaa ilaa iyo halkan intan kale waa iska reeysaa waa citations waa links camal waay marka ilaa halkaas koobi garanayna koobi aan leenahay kadib waxaan ku laabanaa ChatGPT marka inta semicolon aad dhigaysaa marka paste ayaan ku leenahay marka inta ayaan leenahay marka maxaa hadda uu na siin doonaa structure block oo diyaarsan ayuu na siin doonaa introductionka iyo waxyaala la midka ahaa ayuu na siin doonaa marka saa u jeedin meeshan block structure uu noo dhameeyey wuxuu na siiyey block structureka oo dhammaystiran oo leh marka two titleski oo leh introduction and adii understanding block structureka oo dhammaystiran noo qoray marka waxaan dala sameynaynaa hadda structureka uu na siiyey hadda marka waxaan u gudgalaynaa inaan qorno articleska oo dhammaystiran one by one inaan qorno marka waxaan aadaynaa haddana baalka haddana waxaan siinaynaa intan yar oo bronzkan ayaan leen siinaynaa kadib waxaan kusoo laabanayaa intan best ku leeyahay marka waxaan now write the following sections only marka waxaan rabnaa inaan section inaan u qornaa rabnaa marka aan weydino noo qoro marka waxaan soo qaadanaya labada section ama labada structureka ugu horeeya aan soo qaadanaya kadib waxaan leeyahay ii qor marka waxaan soo qaadanaya introduction iyo midkan koowaad aan soo qaadanaya labadaasaan soo qaadanaya labaa usoo koobi garaynaynaa marka waxaan leenahay marka noo qor marka labadana noo qora hadda besta inta ku leedahay marka hadda waxaan ka horfiinaa inuu labadaas noo qor waa hore marka each by time labaan soo qaadanaya waxaan leenahay noo qor marka sidaas aan ku dhammaystiraynaa blogan articoleka oo dhammaystir marka saa jeedin hadda noo qoray wuxuu noo qoray introductionka iyo first structure ayuu noo qoray oo ah understanding factors affecting insurance rates marka waan soo qaadanaynaa kadib waxaan soo qaadanaynaa midkii labada kale aan soo qaadanaynaa haddana noo qoran leenahay waxaan kusoo laabanaynaa structureki marka haddana waxaan leenahay noo qor structure 2 iyo 3 noo qoran leenahay soo koobi garsanaynaa marka hadda wax boonto aan siinayno ma laho keliya waxaan ku base garaynaynaa structureka harmada noo qor marka 2 iyo 3 aan noo qor leenahay marka bestaan leenahay dimintaan leenahay hadda marka noo qoraya structureki labaad isbitaal noo qoraya marka saas aan u siinayna laba structure markaas noo qoraya saas aan ku duwanaa structureki marka 2 iyo 3 noo qoraysa ujeedin marka waxaan rabaa inaan inta qaybta ka soo artay structureka aan qoro marka muuqaalka waan buus garanaa
sifa muuqaalka noo beeran. Marka waan post gareynayaa inta soo hartay ayaan qori doonaa. Marka saa u jeedin hadda kulli waan soo qoray ilaa conclusion-kii waan soo qoray. Hadda blog post dhammaystir waan qoray. Marka hadda waxaan rabaa kulliina aan copy gareeyo marka aan iskugu geeyo Google Docs cusub aan furanaa markaas xag ayaan ku diyaarinayaa. Marka waxaan doonaa post gareynaa muuqaalka. Marka saa u jeedin hadda waan soo copy gareeyay. Google Docs cusub aan kusoo copy gareeyay markan halkan paste kusoo dhahay. Marka saa u jeedin hadda waa dhammaystiran yahay waa blog post dhammaystiran oo optimized ah. Marka waxaa laga doonaa marka blog post-taada mar walba inuu ahaado optimize si marka Google markaaseeto oo u fahmo blog post-taada inay tahay blog post oo optimized ah. Marka maxaa title waa in halkan title gelisaa saa u jeedo marka H2 marka waa doon u lahaadaa H1 iyo H2 marka H2 marka sin yahay waa in H3 soo raaco. Marka H2 marka ana saa u soo raacnaa marka. Marka muuqaalkan taasaan kusoo koobayaa haddii muuqaalku soo gaaro fadlan like noo saar noo share garee. Waa mahadsantihiin waa mar kale muuqaal xasan.